waxaana wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka ee VOA barnaamijkeennan oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota gabi ahaanba waxaynu ku faaqidaynaa xeerka canshuuraha ee dalkan Mareykanka oo toddobaadkan xisbiga jamhuuriga talada dalka Mareykanka uu meel mariyay kaasi uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xilligii doorashada ku soo ololeeyay inuu wax ka bedelayo hanaanka canshuuraha ee dalkan Mareykanka isla markaasina riyadaasi uu toddobaadkan madaxweyne Trump ka dhabeeyay isagoo markii xeerkan la meel mariyay mar uu la hadlayay qalabka warbaahinta ee dalka Mareykanka farxad iyo dhoolla cadeyn iyo waliba nin guuleystay inuu ahaa laga dareemayay haddaba xeerkan iyo saameynta uu ku yeelanayo dalka Mareykanka khaasatan Soomaalida ku dhaqan dalkan aynu barnaamijkeena gabi ahaanba ku faaqidaynaa waxa barnaamijka marti uga Maxamed Cumar oo ah dhaqaalayahan Soomaaliyeed isla markaasina cilmiga canshuuraha ku fogaaday oo ku talax tagay isla markaasina kamida جريدة الصومالية ذي كل دقن قبل كمان صوت برامج كمان تا أيو مرتي وياها محمد يعني جعل برامج كنا كسروي محمد كسرو برامج كمقال كفيوه مهتسن صاحب مسعدة محمد أديكو مهتسن طبعا واحد لصعوتا حزب الجمهورية يوم مدحوينها أمريكا دونالد ترامب تضبط كان وحوها تضبال دبال دق وآد وجو رياقين جوشي كجارين إن مال مريان حركة عن شورته ومدحوينه كسوق اللي بالمركب وجوه الرئيس هذه آد بالشدة نداونا يسوي شرحه وما حي حركة عشورها إلى مال مري مدحوين دونالد ترامب وحكول على نيجب إنه سكود ديو شرعية بدن ودالك أمريكا وكتامي إنه بدله لكن تانو حيقول نقطة فرحات وين محيا الشرعي يعني ومركي كواد مدة صدني كو سنة لبدلو قابكي وكوش غيني عنشورة دالك أمريكا inta badan waxa dhici jirtay markii madaxweynayaashu isbedelaan ama baarlamaanku isbedelo in waxna lagu dari jiray waxna laga dhimi jiray qaabka canshuurta waa waxa ugu muhiimsan ay dawladdu ku shaqeyso maxaa yeelay lacagta laga soo qaado kambaniyada iyo shacabka unbaa dawladdu lagu maareeyaa waxyaabaha dawladdu u baahan tahay oo idin lagu fuliyaa gartay laakiin marka laga hadlayo xeerkan iyo qaabka uu dhaqan galayo haddii si kooban aad u macnayso maxaad ku tilmaami lahayd sida dadku la socdaanba inta badan waxa dhacda xisbiyada labada xisbiye Mareykanka xisbiga wuxuu xiiseeyaa dadka soo doorto sidii ugu faa'iideyn lahaa xisbiga jamhuuriga inta badan markuu loolanka siyaasadda ku jiro waxa aad u taageera kambaniyada waaweyn iyo dadka lacagta leh labada qoloba waxay aaminsanaayeen in badan ka eed sheeganayeen in canshuurtu ay ku badan tahay saadaradeedna ay rabeen in canshuurta laga dhimo waa markii ugu horeysay wixii ay rabeen ee heleen waa gartay marka laga hadlayo dadka maalqabeennada ah iyo kambaniyada aad tilmaantay waaweyn dhaqaalaha badan dalka Mareykanka ama dad shaqaalaysiiya ama wadanka Mareykanka dadka iyagu kala wada ah laga hadlayo canshuur baa loo dhimaya canshuurtan marka loo dhimayo ya sidee loogu dhimayaa tira intee la eg baa xeerkii kan ka horeeyay uu ka goyn jiray tani sidee bay kaga duwan tahay sideese markaas ay uga faa'iideysan hadaad arrintaa ka waranto waa su'aalo aad iyo aad muhiim u ah inta badan waxa dhici jirtay kambaniyadan ka hadlayno dadka shacabku inta badan way garanayaan waa Microsoft waa Apple waa kambaniyadii Mareykanka ugu waaweynaa corporationka Best Buy baa kamida oo Minneapolis ku taala muhiimadu kambaniyadani waxa laga canshuuri jiray boqolkiiba 35 dakhliga soo gala laakiin hadda dawladdu way yareysay miisaaniyada canshuurta laga rabo kambaniyada waaweyn oo waxay ku soo koobtay 21 oo macnaheedu ay tahay boqolkiiba 15 ilaa 14 waa loo dhaafay dakhligii dawladdu ay ka qaadan jirtay sanad kasta lacagta marka meesha ka baaqsanaysa oo ay weynayso dawladdu sax sidee ku helaysaa yaa la saaraya lacagtan oo laga soo qaadaya waa run horta midda ugu horeysa ilaa 1.5 trillion baa lagu qiyaasayaa inuu noqonayso muddo 10 sano ah lacagta dakhliga dawladda inuu hoos u dhacayo soo galayo waxa la rajeynayaa maadaama boqolkiiba 15 loo dhaafay kambaniyada waaweyn canshuurta laga qaadi jiray inay shaqo abuuris badan suubiyaan oo maalgashi badan suubiyaan inta sida dhabtaana waxa weeye dadka dhaqaalaha bartay ay ka hadlaan markii laga dhimo miisaaniyada ama canshuurta laga qaado kambaniyada waaweyn ay maalgashiga suubiyaan
waxa dhacda shaqooyin badan in wadanka abuuro dakhli badan uu wadanka soo galo saa daraadeed waxay dhahaan tax base-ka ama dadka canshuurta laga soo wada qaado baa aad u badanaysa tan waa iska siyaasad run ahaantiina boqolkiiba 55 shacabka Mareykanka way ka soo horjeedeen sharcigan maxaa yeelay markii dadkii waaweynaa loo dhaafay canshuurta iyo kambaniyada waaweynaa iyo dadkii taajiriinta waxa u malaysaa dadkii shacabka dadkii tabarta darnaa saboolkii ba ama laga dhimay wixii la siin jiray oo benefit ah ama lagu kiciyay canshuurta marka dadka la yiraahdo canshuurta lagu kicinaya mesela hadii dadkii lacagta la canshuurtii laga dhimay su'aashaas meedinta mudan oo marar badan dadku ay soo celiyaan waxay tahay waa tuma cidda lacagta lagu korinayo oo canshuurta kor loogu qaadayo ha middle class-ka dadka la yiraahdo Mareykanka boqolkiiba 62 shacabka Mareykanka canshuurtoodu kor bay u kacaysaa maxaa yeelay nimankani Republicaanka ah ama jamhuuriga waxay aad u farsameeyeen oo u qaabeeyeen ayb inaysan uga imaan soo qof kasta waxa la yiri canshuurta waa laga dhimayaa laakiin marka aad u daristid oo aad eegtid nambaradii iyo waxa la socota dadka Soomaalida dadka saboolsan ama dadka soo galootiga inay ku jiraan waxa u soo noqon jirtay lacag badan oo loogu soo celin jiray caruurta daraadood oo ama exemption wax la dhahay ka benefit garan jireen waxyaabahaas oo dhan meesha way ka baxeen waxa dhacaysa marka qofkii heli jiray $3,000 inay noqoto $1,000 oo kaliya inay u soo noqoto marka sababtaasaa keentay mucaaradad badan xisbiga dimuqraadiga iyo dadka u ololeeya dadka dakhliga yar inay ka soo horjeestaan مثلا waxaad carab ku dhufatay arinta canshuur celinta oo kale waxaan ognahay مثلا gobolkan Minnesota oo kale Soomaali fara badan baa ku dhaqan sida gobolka kale Ohio iyo gobolka kale dalkan Mareykanka kamid ah Soomaalidu meel aad ku degan kamid ah waxaan ognahay dadka Soomaalidu waxay aad ugu xisaabtamaan sanadka canshuur celinta marka la gaaro waxaad maqlaysaa qoysle intaasoo kun baan rajaynaynaa inay sanadka noo soo noqoto oo lacagtii aan shaqeynay waxyaabaa noocaasa marka dadkeen dakhliga intaa la ku xisaabtamayay in ay sanadka ay dawladda Mareykanka ku soo celiso lacagtaas waxaad isleedahay waa isdhimaysaa horta saameyn waxay ku yeelan doontaa sanadkan 2018ka oo hadda lacagta canshuurta la celin doono muddo hadda 2 bilood naga xigta ama bil gudaheed taa saameyn kuma leh laakiin waa runo sanadka 2019ka markii canshuurta la celinayo ha dhibaatooyin badan hadaynan xisbiga dimuqraadiga aqlabiyad helin aqalka hoose ee aqalka sare sida la rajeynayo doorashada soo socota ee markaa de wax ka badbedelin laakiin uma yeelanayaan awood ay ku hor istaagaan sharcigan marka sharcigan saameyn badan buu ku yeelanaya qof kasto Mareykana oo ama taajir ah ama faqri ah waa dareemaysaa dadka taajiriinta lacag badan bay helayaan dadka faqrigaana lacagtii loo soo celin jiray ama dadka dakhligooda uu yar yahay way dhinmaysaa xeerkani wax saameyn ma ku yeelanaya ee dhaqaalaha dalka Mareykanka kor miyuu u dhigayaa ma hoos buu u dhacayaa sidee buu u saameynaya dadka dhaqaalaha bartay ilaa 3% sanadka soo socda inuu dhaqaalaha ku korayo ayaa la rajeynayaa stock marketka oo suuqa lagu kala iibsado kambaniyada shareskooda ilaa 5,000 buu kor u kacay intuu Donald Trump madaxweynaha noqday xisbiga jamhuuriga sidiisaba uu u fiican yahay dhaqaalaha maxaa yeelay wuxuu daryeelaa uu u faa'iideeyaa kambaniyada waaweyn laakiin dadka dimuqraadiga ee dadka saboolka u duqda waxay leeyihiin waa in la isu dheelitiro inaan kambaniyada kali loo faa'iideyn taas waa mid dhibaato laga baqayo inay dhibaato u keento wadanka adigu shakhsiyan ka qof cilmigan bartay canshuuraha marka aad tahay maxaad isleedahay adiga markii ugu horeysay muddo 30 sano ayaa gabi ahaanba xeerkii lagu taabagelinayay canshuuraha dalka Mareykanka gabi ahaanba la bedelay maxaad isleedahay way dhici doonaan run ahaantii ilaa hadda warqadaha lagu printer gareeyay sharcigana lagu mariyay aqalka sare iyo aqalka hoose ilaa 6,000 oo page weeye hal qof oo aqriyo fahmay ma jiro laakiin inta badan waxaan aniga ku raacsanahay qolyaha leh dadkii saboolka ah dantoodii aad baa looga tagay oo waxa kaliya loo faa'iideeyay dadka dakhligooda uu sareeyo taas ayadoo sidaas ay tahay haddana haddaa fiirisido dhaqaalihiina kor u soo kaco xisbiga dimuqraadiga oo hadduu at least labada aqal midkood aqlabiyad ku helo waxa laga yaabaa waxyaabahan oo kale inay wax ka badbedelaan because sharcigana ma hirgelayo ilaa muddo sanada marka sanadkaas in waxaan filaynaa dadka faqriga ama dadka dhaqaalooda soo korayo Soomaalidu kamid tahay anuun Soomaali baan ahay
in wax laga bedelo at least intuu waxaa laga yaabaa adiga dadku markay ku arkaan inay ku maleeyaan dadka dhaqaalahooda oo sare mar inaad ka mid tahay maya waata maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaal kaasi waxau ahaa maxamed cumar dhaqaalayahan Soomaaliyeed isla markaasina cilmiga canshuuraha aad wax uga og oo barnaamijka maanta marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar dambe daawadayaal barnaamijkan lamida dib u kulmi doono waa maxamuud sacad dawidala sida iyo nabadgelyo